qodobada aan sidoo kale isla eegi doona iyana waxa kamida mid kamida xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iscasilay waa wasiir Cusmaan Dubbe oo hore wasiir u ahaa laakiin hadda xildhibaan ah oo xildhibaanadii iska casilay laakiin wuxuu sheegay hadal mar kale u muuqdo in uu doonayo xitaa Puntland in uu ka dhex abuuro iyo Soomaalida inteeda kale xaalad kale waxaan idin diyaariyay hadalka Dubbe uu sheegay waxa ka runa iyo waxa ka beena macluumaad iyo cadaymo cad ayaan idinkaga diyaarinay qodobada sidoo kale qaybta ugu dambaysa barnaamijka aad ku maqli doonto iyana waxa kamida madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay talaabada ay qaaday Israa'iil iyo hadalkiisa oo ay warbaahinta si weyn caawa ilaa iyo maanta u hadalhayso waxa dadka iyana arintan ka hadlay kamida qaar kamida salaadiinta iyo odayaasha ka soo jeeda Somaliland oo uu kamid yahay ninka maalmaha la soo dhaafay sida yaab kale u hadlayay waa boqor Buurmadoobe iyadoo faahfaahsanayaad maqlidka 1447 taariikhda hijriyada waa fiidnimo xadsiin ay soo galaysan 18 bisha 12aad sanada 2025 Israa'iil ayaa u muuqata inay ku guuleystay talaabo dad badan ay saadaalinayeen taas oo ah inay doonayso inay xaalad ka dhex abuurto gudaha Soomaaliya magaalada London waxa ka dhacday dhacdo aad u xanuun badan kadib maanta markii ay isku dhex xiriyadeen iskuna dhex dagaaleen dhalinyaro Soomaali ah oo qaar ay wataan calanka Soomaalida qaarna ay wataan calanka Somaliland dhalinyarada calanka Soomaalida wadatay ay dhalinyaro reer Somaliland ah dhagaxiyeen iyadoo la arkay in la hareereeyay dhalinyaradii calanka buluuga ah wadatay halka qaarka calanka Somaliland watayna ay qaar kamid ku dhawaaqayeen qabta oo dila taas oo ku tusaysa mar kale dad isku diina oo walaalaha isku af ah in ay hadda cuqdad weyn iyo dhibaato weyn soo kala dhaxgalayso iyadoo dadku ay yihiin dad xidid xigaala ah haddana waxay u muuqataa cuqdada dhexdooda la dhigaya iyo xaaladda la abuuraya inay tahay xaalad sii fogeynayso Soomaalida meesha ay isu joogaan oo aad meel durugsan u kala geynayso waxaan rabaa marka hore intaan faahfaahinta u galin sakana yarna muuqaalkan ila aragtaan ma ahan muuqaal sahlan waxa uu dirayaa fariin adag goobta la isku haysta ma ahan Soomaaliya waxa la isku haystaa dal shisheeye waxa is haysta Soomaali waxay isku haystaan inay cadow isku yihiin iyagoo iloobeynay ugu yaraan waxa ugu weyn ee ka dhaxaya ay tahay la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah bal ila daawa dhacdadan yaab kale waaye sida aad maqlaysaan kuwaasi waa dhalinyaro isu hanjabaya is eryanaya is dhibaataynaya dalalka ay joogaan gudaheeda dambi ayay ku galayaan oo qoysaskooda dhibaato ayay gaarsinayaan dadkoodina cuqdad ayay kala dhex dhigayaan tani waa xiisad ay abuurtay ma ahan xiisad Soomaali dhexdeeda ka dhalatay dawladaha shisheeye ee nidaamyo ka baxsanaya waxaan abuuraya xitaa dawladaha ka falcelinaya xaaladda maanta Soomaalida ka dhex taagan waxa ay u kala safan yihiin kuwa Somaliland la safan iyo kuwa la safan Soomaalida inteeda kale waa cuqdad iyo halis balan qodobka labaad toos ugu galo madaxweynaha dalka Eritrea Asiyaas Afwerki ayaa kamid ah dadka ka hadlay aqoonsiga Israa'iil ay aqoonsatay Somaliland laakiin sida uga hadlay waa si yaab leh Afwerki waxa uu yiri talaabada Israa'iil ay qaaday ma ahan buu yiri mid la sahashan karo waa arin gobolka oo dhan khatar weyn ka abuurayso waa in si adag wax looga qabtaa Asiyaas Afwerki ma ahan in uu Soomaalida koonfurta taageersan yahay oo uu Soomaalida waqooyiga ama Somaliland uu ka soo horjeedo laakiin waxa uu eeganayaa dantiisa isagu wuxuu la dagaalsan yahay Ethiopia waxay xiriir la leedahay Israa'iil meeshaas ayuu Netanyahu iyo kooxdiisa kala dagaashan yahay ma aan kooxda Muqdisho fadhisa inuu la jiro ama dawladda Soomaaliya inuu la jiro mana ahan kooxda Hargeysa inuu ka soo horjeedo Somaliland uu la dagaalsan yahay waa sida Israa'iil aysan Somaliland si gaar ah u jeclayn ilaan isku diin ma ahan isku danna ma ahan
iyadu waxa ay rabtaa in ay Soomaaliya saameyn ku yeelato si ay laba qoloba xal ugu hesho. qolada koowaad waa kooxda Xuutiyiinta dalka Yemen oo ay isku hayaan Baabu Mandab oo cunaqabateen loogu sameeyay Israa'iil isla markaana duqeynii gantaalo ku garaacdo Tel Aviv oo ay adagtahay Israa'iil inay toos u soo gaarto sida Suuriya iyo Falastiin iyo Lubnaan ay u soo gaari karayso uma soo gaari karta Yemen. qolada labaad oo Israa'iil rabta xal inay uga hesho iyadoo markii rabta inay u marto Soomaalida waxa ay tahay Turkiga. waxay aad uga careysan tahay Israa'iil xiriirka dawladda Soomaaliya iyo dawladda Turkiga. waliba Israa'iil waxay aad uga carootay oo wararku ay sheegayaan in dawladda dhexe Soomaaliya ay kala hadashay in la joojiyo satellite-ka hawada Soomaaliya ee dhulka Soomaalida laga dirayo ee la isticmaalayo Turkida ay isticmaalayaan bayska Soomaalida. arrintaas Israa'iil waxay u aragtaa arrin qarankeeda waxay iyada ugu yeerto iyo amnigeeda halis ku ah. sidaa darteed dawladda Soomaaliya ayay u soo jeedisay in Turkida laga diido arrinta. markii arrinta la isku mari waayay oo dhowr jeer dawladda Soomaaliya iyo ka wada hadleen Israa'iil waxay go'aansatay in ay Israa'iil iyana tallaabo qaado oo taa oo ah in ay dawladda Soomaaliya meesha ay ka jilcan tahay ay ka xanuujiso iyo guud ahaan Soomaalida. si lamida siyaasi Afwerki ma ahan nin Soomaaliya si gaar ah u jecel. waxay farakul isku hayaan oo ay dekad iyo bad wax walba isku hayaan Ethiopia. waxay si gaar ah maalmihii la soo dhaafay sanad bilihii u dambeeyay ishayeen Abiy Ahmed oo nin aad u damac badan. haddaba dhinacyada dadka Soomaalida isku dirayo ama dawladaha ku lug leh iyo kooxaha ma ahan kuwa dan gaar ah u wada dhammaan Soomaalida. waxaase cajiiba dad Soomaali ah oo Soomaalida isku dirayo oo madaxa isu gelinayo oo aad arkayso meeshii xitaa ay ka shaqayn lahaayeen danaha siyaasadda waxa ay ka shaqaynayaan dad muslimiina cuqdad inay sii kala dhex gasho colaadu ay sii hurto xaaladu ay adkaato. intaana qodobada intooda kale u gelin bal aan idinla wadaago wasiir xildhibaan Cusmaan Dube oo ka hadlay in dawladda Soomaaliya darteed uu isku casilay cadaalad darro u dareemay. Dube waxa ay sheegayaan dadka arrimahan ka faaloodo inuu ku soo aadiyay iscasilaadiisa xilli yaab leh taasoo ah markii ay Somaliland sheegtay in Israa'iil ay aqoonsatay Netanyahu-na uu la soo xiriiray Ciro isla markiiba wuxuu ku dhawaaqay maalin kadib inuu xildhibaannimadii ka tagay. waa nin wasiir ka soo noqday dawladda dhexe waa nin xildhibaan dhowr jeer noqday waliba kuwa ugu magac dheer ka mid ahaa. ma ahan kaligiis kalfadhigii ugu dambeeyay baarlamaanka ee madaxweynaha Soomaaliya uu ka qudbeeyay qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda Somaliland ayaa la sheegay inay ka maqnaayeen. waxa xitaa la sheegay madaxa aqalka sare in uu ka maqnaa kulankii ugu dambeeyay. waxa sidoo kale wararku ay sheegayaan in ay jiraan xildhibaano qoraallo soo qoray markii dambana tirtiray. laakiin qaladka ay sameynayaan xildhibaanadaas ka tirsan dawladda dhexe iyo kuwa ka tagayo ee xitaa wasiiradii hore uga soo mid noqday dawladda dhexe Somaliland ka soo jeeday kaligood qaladka ma lahan. xitaa Puntland xitaa koonfurta Soomaaliya ee Muqdisho ilaa iyo Baydhabo ee meel walba waxaa jira kuwa ku xadgudbay nidaamka dadka Soomaaliyeed iyo sharciga dawladda dhexe iyo dhammaan dastuurka ay sheegteen oo dhan. sharcigaas adduunyada marka lagu xadgudbo waxa loo yaqaanaa treason ayuu ka mid yahay. waa khiyaano qaran oo dadku waa la soo xiraa ama waa la xukumaa xitaa iyagoo maqan. waxaase cajiiba maamul goboleedyadii qaar ka mid ah inaysan weli iyaga laftirkooda madaxdooda aysan hadlin aysan cambaaraynin. gaar ahaan ilaa hadda Cabdullaahi Saciid Dani wax wara lagama hayo. Axmed Madoobe kama hadlin hadalkii Netanyahu. dhinaca kale waxaad garanaysaa oo aad ogaanaysaa wasiir Juxa oo ka mid ah wasiirada dawladda federaalka soo maray haddana wasiir Puntland ayaa waxa uu soo qoray isla markii Netanyahu iyo Ciro ay wada hadleen inuu amaanay Somaliland oo ku sheegay in muddo adkaysteen Puntland sidaas oo kale looga baahan yahay. macnaheeduna ay tahay Puntland inay go'do. hadalladan oo dhan waxa ku soo muuqanaya hadalladii uu waqti hore iyagoo nool ay jeediyeen Sheekh Boqolsoon iyo Sheekh Maxamed Rashaad oo ahayd Soomaalida in deegaano iyo tuulooyin loo qaybin doono ugu dambeyn iyaga la isku diri doono
oo ay isdagaali doonaan oo isku dagaali doonaan dawlado go'an oo isku af ah isku dad ah laakiin iyaga cadowga ugu weyn isku noqon doono shaki kuma jiro qof kasto Soomaali oo damiir leh in maanta taa ay u muuqato haddaba muxuu yahay wasiir Dube hadalka uu ku hadlay iscasilaadiisa isagoo la hadlay qaar kamid ah warbaahinta Soomaalida waxa uu sheegay inuu ka carooday dawladda Soomaaliya oo safiiradii ugu badnayd u dirtay dibadda laakiin Puntland la aan balasiinin ba safiiro muhiim ah dabcan dadka arrimahan ka hadla waxay sheegeen inay macquul tahay safiiro badan ee helin Puntland dadka ka soo jeedo laakiin anagu waxaanu haynaa macluumaad aynu soo xar aruurinay safiirada ka soo jeeda deegaan ahaan Puntland sida soo socoto safiirka Scandinavia Sweden Norway iyo Finland wuxuu ka soo jeedaa Puntland waxana qabiil ahaan la sheegaa inuu yahay Ortable safiirka Oman waa Arab Salah safiirka UK waa Lelkase safiirka Masar waa Majarten safiirka Poland waa Majarten safiirka Germany waa Majarten maxay tahay marka ujeedada uu sida u leeyahay Dube xildhibaan Dube wuxuu rabaa in dhaawaca uu geysanayo kaliya aysan ku ekaarin isaga iyo Somaliland xitaa Puntland iyo koonfurta Soomaalida inteeda kale inuu madaxa isku sii geliyo ayuu rabaa laakiin maxaa laga samaynayaa qofka noocaas oo kala ah xitaa hadana marka la qaban karin shuruucda dawladaha adduunka waxay dhigaan qofka in lagu xukumo in uu galay dambi wadan khiyaano qaran in uu galay qodobka meesha ayaynu ku dhaafaynaa waxa inoo soo socdo macluumaad cajiiba oo ku saabsan warbaahinta caalamka faahfaahino iyo macluumaad ay ka qoreen xaaladan cusub ee maanta iyo shalay inta ugu badan laga hadlayo akhbaar ayaan idinkaga hayaa iyo hadalka boqor buur madoobe oo ku tusaysa aafada iyo musiibada uu xambaarsan yahay marka hore si aynu ku yaraa kana walaalaha qiimiga lahow qorrada salaadiinta iyo odayaasha Somaliland ka soo jeedo oo xitaa dad Somaliland ka soo jeeda aad u dhaliileen bilihii la soo dhaafay sida uu hadlayay akhyaarnimada ka baxsan iyo hadallada afxumada afkiisa ka soo baxaya ayaa wuxuu mar kale aad u aflagaadeeyay ummadda Soomaaliyeed isagoo sidoo kale isticmaalay hadallo iyo warar yaab leh oo ay ka mid tahay in uu sheegay hadal cajiiba oo uu leeyahay magaalooyinkeena Hargeysa Boorame Burca iyo kuwa kaleba waxaan u bixin doonaa buu yiri Tel Aviv Jerusalem iyo magacyo kale oo ay leeyihiin magaalooyinka Israa'iil ay maamusho hadalkan iyo hadallada la midka ah ayaa lagu tilmaamay inay tahay kuwa musiibo ah oo muujinaya sida Soomaalida meel daran loo gaarsiiyay xaaladuna ay u liidato ma ahan markii ugu horeysay boqor muur madoobe iyo cid lamid ah hadallada noocan oo kala ay ku hadlayaan laakiin waxa la yaab leh maxaa isu keenayo in nacayb iyo cadowtinimo qalbiga laga muujiyo afkana laga sheego iyadoo la soo dhaweysanayo Israa'iil Soomaalida inteeda kale la fogeynayo islaamnimadii dhaqankiina la ilaabayo laakiin waxa arintan aad uga dhiidiyay oo diidan qaar badan oo dadka reer Somaliland ah oo ay ku jiraan culimo akhyaar iyo aqoon-yahano si kastaba ha noqotee waxa hadda socda ayaa u muuqda inay tahay arin dhalin karaysa aafa halis ah Israa'iil iyadoo waxay u muuqataa inay gaartay hadaf weyn kaas oo ah inay ku guuleystay in koox Soomaalida kamid ah haba yaraadaane ay soo jiidatay oo calanka Israa'iil maanta ay ku faanayaan iyagoo markii hore aad loogu cambaareynayay xadgudubka iyo dambiyada iyo xasuuqa lagu eedeynayay inay ka galeen gudaha Gaza walaalaha saaxiibada qiimiga leh barnaamijkii fiidnimo oo aad kala socoteen kow Somali Media caawa inta ayaynu ku soo xireynaa intaynu ka bixin bal aan dul marno warbaahinta Al Jazeera BBC CNN TRT iyo kuwa kale dhammaan waxa headline-ka u haysto ama warmadaxoodkooda ah inay aad u falanqeynayaan xaaladan talaabada Israa'iil ay qaaday iyagoo si gaar ah ugu ku tilmaamaya talaabada Israa'iil ay qaaday inaysan ahayn mid si gaar ah ay Somaliland garab ugu siinayso laakiin dhammaan ay falanqeeyaashu tilmaamayaan in Israa'iil ay tahay ujeedo weyn oo ay damacsan tahay taas oo sidii bilowgii aan sheegnay lagu soo koobay xiisada kala dhaxaya Turkiga iyo walwalka ay ka qabto isfidinta Turkiga Suuriya Soomaaliya iyo Gaza oo xitaa rabay inuu ciidankiisa keeno
aad uga walwalsan yahay iyo sidoo kale xiriirka Israa'iil ay doonayso inay la yeelato Somaliland si ay xuutiga wax uga qabato arrintiisa inta ayanu barnaamij ku soo gabagabeynaa nabadgelyada Ilaahay dushiina